are following us. أبي آيفون عصمي يبين صدق أول لين لصوري كلية قيمة سديد بقول ضرفير أدبا وهو تاسي waa lacag badan adigu waad ogtahay sida adag aan u shaqeyno taasina waa lacag xad dhaaf ah iga jooji waa xad dhaaf taasi ma ahan mid adag fiiri lacagtu kama aysan baxdo geedaha ayadu waxay u baahan tahay shaqo adag laakiin xaqiiqdii isaga waan u baahanahay anigu waxaan kuu sheegayaa sida aad isaga dartii ugu shaqaysan lahayd haddaba bilow oo saxamuuna tan iga qaad sidee suurtagal ma ahan anigu ma waxaan kuula ekaaday adeegi waxaan ba hilmaamay inaan hooyaday weydiisto hooyo hee wiilkaygiyo hooyo iPhone cusub ii iibi aabahay ma doonayo inuu ii iibiyo wiilkaygiyo waxaan u malaynayaa bilii la soo dhaafay inaan ku gaday taleefan iPhone ah ها هوي كاسوحة ايفون كوي طبعا بس كان هو ايفون لبي طبعا wiilkaygiyo amba ilaa hadda waxaan haystaa taleefana kanduuga ah maxaa yeelay lacagtayda waan kaydsadaa laakiin fursad ayaan ku hayaa jikada igala shaqay maacunka ila dhaq kadibna lacag aad ugu shaqaysata ku iibso ياه سيديه أنا كم واحد يملس كوا ويل كدقة حتى وان سكيل ما إنا كويدي سجا wiilkaygii annagana ma caawinaysid miyaa anigu ma waxaan kula ekaada shaqaale iga taga kaliya baan rabaa inaan ahaadee wiilkaygii waan ogahay inaad aad ugu baahan tahay iPhone adigu laakiin haddii aad naga caawisid shaqada meherada waan kuu iibin doonaa haa haddii aad meherada ka shaqaysid waan kuu iibinayaa iPhone waan ka xanuunsanaya tan anigu uma baahni inaad isaga ii iibisaan shaqo ayaan heli doonaa lacagaan shaqaysta ayaan ku iibsan doonaa si uu gato iPhone 12 waxa uu go'aansaday inuu waalidiintii isaga tago waxa uu raadsaday shaqo kale nasiib wanaag waxa uu helay shaqo aad ayuu ugu farxay markii uu helay shaqada balse shaqadaas ayaa ahayd inuu meherad ka shaqeeyo saxamuuntii uu ka diidi jiray inuu aabihii ka qaado ayaa khasab noqotay inuu qaado weelashii ama saxamuuntii uu ka diidi jiray inuu hooyadii ka dhaqo ayaa khasab noqotay inuu isagu dhaqo sidoo kale waxa lagu khasbi jiray dhammaan meherada qolalkeeda inuu xaaqo sidoo kalena kuraasta meherada mid u dhigdhigo haddaba siduu u shaqaynayay si adag ugu shaqaynayay ayaa ugu dambeyn waxa la gaaray bishii uu lacagta qaadan lahaa ayuu furay jeegii ay lacagta ugu qorneed kuna qaadan lahaa mise lacagta ugu qoran jeega waa lacag aad u yar markaas ayuu ogaaday inaan lacag si fudud lagu helin ilaa si adag loo shaqeeyo mooyaane wuxuuna go'aansaday inuu dib ugu laabto bilo yar gudahood waalidiintii wuxuuna dib ugu noqday waalidiintii oo ka shaqaynaya maqaaxidoodii haye hooyo haye aabe waan soo dhamaystay shaqadaydii sidee tahay wiilkaygiyo waan fiicanahay laakiin xaqiiqdii waan soo daalay waxaan soo xaqiiqsaday bilihii aan inaga maqnaa aabe hadalladii aad dhihi jirtay inay sax ahaayeen lacagtu kama aysan baxdo geedaha balse lacagtu waxay u baahan tahay in si adag loo shaqeeyo taasna waan soo xaqiiqsaday waaw waan kugu faanaa wiilkaygiyo aad baan anigu ugu farxay markii aan taa maqlay haye adigu nafsadaada ma usoo iibsatay iPhone cusub haa laakiin kan aniga nafsadayda uguma talagelin waxaan ugu talagalay hooyaday waayo taleefanka hore ayaa ku daalay hooye qaado adiga ayaan kugu talagalay wiilkii ka suurtagal ma ahan inaan kaa qaato adigu qaado hooyo waan ku baryayaa qaado anigu waan ku adkaystay adiga iyo aabe si adag ayaad u shaqaysaan marka hooyo waad u qalantaa isaga wiilkayga runtii lama filaan ayaad igaga dhigtay waad mahadsan tahay adaa mudan hooyo aabe aniga ayaa kaa caawinaya kuraasta hagaajintooda aad baad u mahadsan tahay wiilkaygiiyow tani waxay noo caddaynaysaa inaad xad dhaaf noo jeceshahay
aad baan ku jecelnahay wiilkaygiiyow. amba sidoo kale waa ina jeclahay. sideen u isticmaali doonaa kan maba aqaan qaabka loo isticmaalee. ha ka welwelin taas hooyo, anigaa ku tusi doonaa. mudane fariisaana ku keenaya. hey waa maxay niyo sidaa u soconaysid? waan ka xumahay mudane, iga raalli ahow. ma garanaysaa qiimaha suudakan? ma ahan lacagaa goyn kadhid adigu. waa runtaa mudane, ma goyn karo ee iga raalli ahow. dadka qaar waa noocan oo kale. gabar yahay, waxaan doonayaa inaad siiso 3 slayd oo biisa ah. $5 haddaad rabto in laba xabba lagugu daro oo dheeri ah. haa, taa hubaashi waan bixin anigu. ee iga qabso $5. mudane fariisaana ku keenayay. waa maxay dhibaatadan? waa 5 gobol oo biisa ah. waa biisa macaan sax? waxaan yaa noo soo diray. runtii adiguma waxaad doonaysaa gobolkii ugu dambeeyay biisadayda inaad qaadatid? sidaan codkaaga ka dareemayo adigu aad baad u gaajaysantahay. hooyintan qaado. waa maxay waxaan aad ii soo goynaysid? maxaa kaa khaldan? ma xishoonaysa adigu intaa leeg? waxa waajib ku geedna naftaada la xishootid. dadka kale waxay soo shaqaysteen lama cunay, waxa shaqaysta ayaa la cunaa. mar walba ha u baran waxaan oo kale niyo. mudane waatan biisadaadii. maya anigu biisadaydu waa cunay. taasi waa isaga biidsadiisii dalab isku mid aad dalbateen. maxaan sameeyey? taasi ma biisadaadii bay ahayd? haa, biisadaydii bay ahayd. aad baan uga xumahay. mar walbaan anigu cunayay waxaan u malaynayay biisadaydii. laakiin gobolkii ugu dambeeyay ee biisadaada maxaa noogu kala jirtay? taamu ii sheegi kadhaa sababteeda niyahow. taasi ma ahan wax weyn. ee mar walba anigu waxaan jeclahay dadka inaan wax la wadaago, taasna waan ku farxaa. runtii qaadashada biisadaada waan ku degdegay anigu. ee fadlan tayda ila wadaag aniga. ila wadaagidda aad ila wadaagaysatayda anigay farxad gelinaysaa.